madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni ayaa shalay booqday taliska 54 ee ciidamada daafaca Puntland halkaasi oo kulan kula yeeshay taliska ciidamada difaaca. kulankan ayaa waxa madaxweynaha ku weheliyay guddi la taliyaal ahaa oo u qaabilsan arrimaha daafaca iyo dhismaha ciidamada kuwaasi oo uu dhowaan soo magacaabay madaxweyne Deni. xogaha laga helayo kulankan ayaa sheegaya in dhammaan hawlihii ciidamada iyo maamulka miisaaniyadoodii lagu wareejiyay taliyaha cusub ee daraawiishta General Abshir London. waxaa xusid mudan in markii hore hawlaha ciidamada iyo tirakoobkooda ay gacanta ku hayeen guddi dib u habaynta ciidamada Puntland oo uu hogaamiye u ahaa wasiirka maaliyadda Xasan Shire Abgaal. sidoo kale waxaa kulankan lagu gaaray in hadda kadib wixii la xiriira dhismaha ciidamada ay ka wada shaqeeyaan taliyaha cusub ee daraawiishta iyo la taliyaasha madaxweynaha ee dhinaca daafaca. la taliyaasha madaxweynaha ee arrimaha difaaca iyo dhismaha ciidamada ayaa kala ah Gaas Maxamed Saciid Xirsi, Gaas Yaasiin Cumar Dheere, Cabdi Shukri Cabdulaahi Xuseen, Saciid Cabdi Faarax Tuutaweyne iyo Guuto Daayir Xaaji Cabdi. tallaabooyinkan uu qaaday madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni ay dadka in badan u arkaan inay tahay tallaabo horumar u seedi karta gobolka Puntland ay wax badanna ka bedeli doono hab dhaqameedka iyo weliba horumarinta dhaqandhaqaale. dadka halka ay qaar ka fahamsan yihiin in uu madaxweynuhu dana gaar ah ka wato islamarkaana wax dan ama maslaxa u ah Puntland una ka shaqaynaynin.